دومي هذه قارية كسرعة ملاد سوى لغة كسرعة ملهي واللغة مي مقالة وكل حلوة سبب تحسين sababtaas waxay la tahay qaalaha anigu wax ku gada lahaa waxaan ugu deeqay deegaanka iyo degmadan ku hormariyay saa darteeda maaragtay ma ii sooraabin in lacag aan baabuur ku gado inay maaragtay ii baaqi noqoto oo qasnad ku shubtaa ma dhacayso degmada Camaara dadka u dhashay ganacsato waaweyn ah degmada Camaara u dhalatay macquul siday ku tahay in gudoomiyihii degmada Camaara uu lugeynayo waxa weeye meelaha qodxuhu ku midayaan sababtoo ah banaanka magaalada loo baxayaa deegaanku waa dhul balaaran وقدوميه دقمدا إنه لوين أيو سداي كل عكرتا إذا weliba aan ogahay qaarkiin inaad daara ka dhisaysaan cadaado dabaqyo ka jeexaysaan iyo baxada iyo meelo badan oo Soomaaliya Muqdisho meel walba inaad hantidiin aad gelinaysaan macquul ma noqon kartay muuqaalkan horta qof walba daawanay oo reer Camaara ganacsatada iyo dadka u dhashay yaqaana horta hay gaarsiyo si qaas ah arintan gudoomiyuhu ma codsan laakiin waa baahi jirto meesha ah ku aragnaa maadaama aan deegaanka u soo aadnay inaad dadka maaragtay dhiirigelino waa muhiim gudoomiyaha degmada Camaara gaarigu ku soco lahaa dadku ugu adeegi lahaa inuu helo haduu naftiisi iyo maalkiisi iyo gurigiisi isku daray oo asaga uu shaqeynayo anagoo og inuu macallin yahay oo ardadiina uu wax barayo dhan oo iskuulka maadadiisa uu dhigayo magaaladii ka shaqeynayo dhanka kale tana waxa weeye xafiiska asaga uu joogo uuna lugeynayo taas macquul ma noqon kartay horta gaari degdeg oo gudoomiyuhu ku socdo reer Camaara marada hanaga ridinine waa inaad si dhaqso ah u keentaan haddii jawaabtaas aadna si degdeg uga soo jawaabin wasaaraddu mar kale idin soo fariisanaysa dawladda federaalka iyo dawladda galmudug soo haray ayagana waxaan ka rabnaa baabuurtii degmada loogu adeegi lahaa oo shaqooyinka danta guud lagu qaba lahaa laga rabaa gudoomiye aad iyo aad si wanaagsan waxaan noo sheegtay gurigan inuusan kire ahayn si wanaagsan adigu markii hore milkiyadiisa aalaheed aan ugu deeqday in lagu shaqeeyo oo hadda shaqada lagu sii hayo dhul oo degmo laga dhisi karo ama bilaabo wax bilaaban ma jiraan degmada waa su'aal wanaagsan anagu waan diyaarinay dhulkii degmada waan diyaarinay walow xataa aan xogaa dhisma aan gelinay laakiin shaqada gurigaas uu u baahan yahay degmadu qarashka uu u baahan yahay kharash culus waaye marka anagu haddii aan 1 mitirna soo wareejinay dhulkiina aan iibinay aan bixinay macnaha waa iibinay dad baan ka iibinay dhulkaas marka waa diyaarsan yahay meel buu ku yaalaa dhismahan aan ku jirnaa waa ku meel gaar waaye degmo balaaran ayaan maaragtay dhagax dhignay oo dhulkeedii qabanay sidaas oo kale saldhig dhulkiisii ayaan qabanay dhul badan aan qabanay oo dan caam ah waxaad fiiri karaysaan boorkan korkeyga ah ayaad arkaysaan waxyaalaha ka muuqda waa horumarkii deegaankii degmada ka laabsaday waxaan rajeynayaa muuqaalka haddii aad ku qabataan in qof waliba ka akhrisan karto waxaa ugu mug weyn suuqa muxuu ahay waxaa ugu mug weyn isbitaalka magaalada oo aan dhihi karno xeeb isbitaalka ugu weyn waaye markii maaragtay la fiiriyo dhismaha uu ku fadhiyo iyo qolalkiisa marka alxamdulilaahi marka waan soo dhammaynay marka waxaan hadda la'nahay fankii waxaan la'nahay qalabayntii iyo dhakhaatiirtii walow marka aan isbitaalka intaa la eg aan dhisnay haddaan dad u weynana waan wadaynaa waxaan qaban karna waan qabanaynaa ma ka daalin madaxweynaha galmudug waxaa ka codsanaysaa madaxweynaha galmudug waa nin maaragtay qiimo badan weeye anigu gudoomiye ahaan ama ka aqoon-yahanada markii waa laygu tiriyaa oo mastaraan haystaa markaan qiimeyn sameeyey waxaan arkay madaxweynaha hore oo galmudugna waan soo arkay madaxweynaha ugu waxqabadka badan inuu yahay oo ugu dadaalka badan oo galmudug horumar u sameeyey inuu yahay ayaan arkayaa weliba waxaan dhihi lahaa oo reer galmudug dhihi lahaa maadaama aynu aragnay madaxweynaha galmudug waxqabadkiisa iyo dadaalkiisa iyo daacadnimadiisa in dib loo soo doorto oo dib loo soo doorto fariintaasna waxa weeye reer galmudug aan u jeedinaya wuxuu soo istaagay magaalada Camaara aan ku soo dhaweyn ballanqaadyo badanna uu u sameeyey markii uu naga laabtayna waxaan ku soo bilowday degmada gargaaro dad fuqara ah oo dhibaataysan oo aad iyo aad duruuf la daalaadhacayay waa loo soo gurmaday agab baa loo keenay waxaa loo keenay raashinno iyo waxaa loo keenay tureeshin iyo wax badana loo keenay marka waxaan leenahay madaxweynaha imaatinkiisii horta waan ku diirsanay wax badan ayaa maaragtay noo markii asaga dibkiis noo yimid
marka waxaan leenahay waa naloo bilaabay in naloo wadi doonana waa rajaynaynaa dowladda galmudug wixii laga codsadaan ka sugaynaa dadka reer camaarana wixii aan laga codsadaan ka sugaynaa weliba waxaan leeyahay si qaas aniga qof walbo reer camaara muuqaalkan iigu sheer garay adiga i daawanaya qof walbo reer camaara oo degmadan ka soo jeeday iyo deegaankan oo aad taqaanid si qaasa muuqaalkan iigu sheer garay jawaab degdeg ah ka rabaa reer camaaro gudoomiyuhu inuu lugeeyo caqli gal ma ahan gudoomiyaasha degmooyinka kale iyo magaalooyinka aan soo maranay inay baawur ku socdaan macquul ma ahan deegaanka baawur baahiye ka badan ka jirta laakiinse baawurku wuxuu muhiim u yahay waxa weeye in dadka loo adeego kamiiga loo tago waxa weeye furmaha la booqdo meelaha waxa weeye wuxuu ku socdo ma jiraanba marka sidaa daraadeed gaariga muhiim u yahay degmadana degmo aan gaari lahayn oo maamulkeeda iyo dadka shaqeynaya ay si gaadiid wadana ma jirto reer camaara kaliya laga arkaa horta midaas waa inaa iska tirtaan oo waxa weeye aan marada naga tuurin ciidamada naga ridin jawaab degdeg ah horta kaga fadhinaa dowladda galmudug iyo midda federaalkana codsigeedana waa ka sugaynaa ayaguna annaguna waa u geey doonaa gudoomiye aad u mahadsan tahay wariya axmed ii waran aabe sidee tahay fiican aabe adigu sidee tahay shaqan ku jiray war aabalayna waa fiicanahay lacagta cidda ma soo dirtay geeli xataa waa bilaa raashine aabe sideen kuu soo diraa lacagta wadaan saaranahay wariya magaalaad joogtahay miyaadan maqal adeegan baysi oo aad toos iigu soo diri kartid lacagta haye aabe bal sugaan tijaabiye aabe masaas ayay u fududahay in lacag lagu soo diro baysi haddii aad ku nooshahay amerika yurub kanada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga baysi waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale ah e v c zad sahal iyo impesa ballanteennu waa baysi